degdeg dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan oo aan waxba la isku reeban ayaa xilligan waxa uu ka soconayaa deegaan lagu magacaabo Hulka beesha ciisana waxay qabsadeen maxaabiistii Samaroon wararkii u dambeeyay ayaa halkan idinkugu soo gudbin doona xiisada deegaankaasi ka taagan cida weerarka soo qaaday sidoo kale qasaaraha rasmiga ay ka dhashay haddii ay tahay markii ugu horeysay ku soo gaaray muuqaalkeenana fadlan subscribe inoo dhig gambareelka nafro si ay ku soo gaaraan muuqaalada kale xiga haddii aad subscribe inoo tahayna muuqaalkan oo share garay like inoo saar soo gaar asxaab badan waad ku mahadsan tahay daawashadaada beesha ciise sidoo kale beesha Samaroon oo muddooyinkii la soo dhaafay ka dhaxaysay xiisada colaadeed oo aad u weyn ayaa mar kale waxay isku farisaareen deegaan lagu magacaabo Hulka iyadoona halkaasi uu ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho dhaawac beesha ciise ayaa sidoo kale qabsaday maxaabiistii Samaroon iyadoona dagaalka uu intaasi ka qarxay saacadihii u dambeeyay kadib markii maleeshiyad hubeysan ay weerar ay ku qaadeen xarun maxaabiis oo ay maamulayeen beesha Samaroon ila dadka deegaanka ayaa xaqiijiyay in xarunta maxaabiista si buuxda loo qabsaday daqiiqadii hore ee dagaalka hase yeeshee ciidamo gurmad ah oo ka tirsan Samaroon ay si degdeg ah u gaareen goobta ay weerarka lagu soo qaaday taas oo sababtay in dagaalku uu noqdo mid fool ah labada dhinac oo ah beesha ciise sidoo kale beesha Samaroon halkaasi si toos ah ugu dagaalameen isla markaana isku adeegsanayeen hubka noocyadiisa culus iyadoona sidoo kale la maqlayay daryanka rasaasta labada dhinac ay isweydaarsanayeen dagaalka ayaa sidoo kale warar iskhilaafsan ka imaanayana waxay sheegayaan in ciidamada Somaliland kuwaasi la sheegay inay dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka wadaan nawaaxiga ee deegaankaasi inkastoo aan si rasmi ah loo ogeenin ama loo xaqiijinin in ciidanka Somaliland ay soo fargeliyeen dagaalkaasi ka dhaxeeya Samaroon iyo sidoo kale beesha ciise dadka deegaanka ayaa xaqiijiyay in rasaasta ay qaraxda ay sababeen barakac iyo sidoo kale qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho dhaawac iyadoona dagaalka halkaasi uu saameyn aad u xooggan uu ku yeeshay caruurtii sidoo kale haweenka ku nool deegaankaasi ilaa ay hadda lama xaqiijinin qasaaraha rasmiga ee dagaalkaasi ka dhashay maadaama dagaalka uu wili uu socdo labada dhinacna ay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan waxaa sidoo kale halkaasi ay soo gaaraya gurmad labada dhinac ka kala socda iyadoona dagaalka uu mar kale laga cabsi qabo inuu sii qarxo maadaama xilligan uu yahay mid degan balse labada dhinac maadaama ay kala helayaan gurmad fara badan ay dagaalka laga yaabo inuu soo xigoosto isla markaana maalmo uu sii socdo iyadoo beesha ciise ay qabsadeen maxaabiistii Samaroon halkii ay ku xirnaayeen ay ku weerareen muddooyinkii la soo dhaafayba waxaa taagnaa dagaalka u dhaxeeya beesha ciise iyo Samaroon iyadoona maalinta ka dambaysa uu dagaalkooda sii cusboonaanayo isla markaana fariimo kala duwan ay hawada isku marinayaan waa ka soo baxlay Djibouti loo ballanayso meelaha gadabuursi dhamaantii shalay tolo difaac buu ahaa laakiin maanta waa weerar arintaa waxa keenay waxa weey waa falkii gunnimada lahaa ee ma taqaanay ciiso aad samaysay iyo difaacdan Soomaaliya maanta halkan waxa jooga ciidanka madaniga beelaha Reexamuud halka jooga waxa weey shalay tole difaac baan ahayn beelaha gadabuursi dhamaantii shalay tolo difaac buu ahaa laakiin maanta waa weerar arintaa waxa keenay waxa weey waa falkii gunnimada lahaa ee ma taqaanay ciiso aad samaysay falkii gunnimada lahaa ee aan Soomaali hore uga dhicin ragii mastaafurka ahaa ee meheradooga iska haystay ee waliba adiga adeega ku waday ee birayseed sida foosh xillu dishay ba keentay ragii indha biraale ku laayay anagu waxaan u soconaa ragii halka falka falxumada ka sameeyay iyo ninkii hogaaminayaba inaanu soo qabanano soconaa insha Allah ta'ala war soo saama waxa weey insha Allah ta'ala hadal badan meeshan ma yaalo beeraha kala gadabuursin insha Allah ta'ala waxaan leenahay war anagu waan dhaqaaqnaa caawa jiidan ku sii soconaa sida ugu dhaqsaha badan la gadabuurso dhowdhowdu kuma dhaxsane sida ugu dhaqsaha badan loo soo babaxo halkan maanta waxaan ka anba bixinaynaa guutadii labaad ee beesha Reexamuud tii saddexaad iyo tii afraad iyo tii shanaadba way dhiman yihiin waana istaba joogan waxayna u socdaan dalka dadka diinta cirdigooga nasabkooga inay difaacaan war Soomaaliya iyo difaacdan Soomaaliya inay nasabkooga iyo diintooda iyo dalkooga difaacaan waxa kale u socdaan dilkii foosha xumaa ee ka dhacay indha biraale ee lagu laayay marxuumiintii halka ay mushtariga ahaa ee jidka ugu joogsadeen ay halka ku bireeyeen
raggii laayena waanu haynaa inaanu ku moognahay hamoodin indha biraalaana kuugu imanaynaa difaac baa lagu jiray Galbuursi meel joogaba dagaal buu qaatay dagaalkaana waan qaadanay dalkeena iyo dadkeena iyo diinteena oo difaacanayna cawaanteena kaga soo duushay Itoobiya diradaba mille ayshaca waxaan rajaynayaa qaxootiga dhago ay naga noqdaan jabhadda waxa la yiraahdaa jabhadda xoreynta waa jabhadda xoreynta gobolka Salal waxaana diyaar u yihiin inay difaacdaan dalkooga iyo diintooda iyo cirdigooga iyo nasabkooga iyo dhulkooga inay difaacdaan bay diyaar u yihiin imikana waxaan ku wareejinayaa taliyihii ciidanka ayaan ku wareejinayaa abaanduulaha waxaan ku wareejinayaa imikana jabhadda waxaan ku wareejinayaa taliyihii iyo taliyaha ku-xigeenkii baan ku wareejinayaa ciidankaasi uu qalbaysan yahay waan nagu wareejiyey idinkuna iga guddoon sidaa aqalkayagu yidhi baa iyaanu kula wareegnay waxaanan doonaynaa inaanu dhaqdhaqaaqa ururka saylac baan nahay annagu waan xoraynaynaa dalka Jabuuti baan inoo ballan inaan ciidanka maamulno si wanaagsan u dagaal gelino insha Allah kaasaan ku sifaynayaa gobolka Salalka waxa dawladda Soomaaliland oo khafaraya in ama noo kala baxdo ama dalka ay difaacdo oo annaga waxaan dhex jooga ka kaxaysa annagu inaan hor deganaadaan ma doonino gobolka Salal lagu marmi maayo ciise khasab baanu kaga saaraynaa waxa weeyaan tiimkan isa soo baahaystay ilaa iyo Itoobiya ilaa iyo Jabuuti iska soo baahaystay waar dhulkan rag baa laadeer raggii lahaaba difaacanaya anigoo ah Chief Aqal Yuusuf Maxamed Cabdilaahi waxaan dirayaa maanta jifcadii labaad ee beesha Habar Yuusuf waxaan diraynaa jiida hore ee aaga war inay tagtaasoo diyaar uma hidina soo dalkiina ma difaacaysan sina dhalinyar baad u badan tihiin dadka aan ku duulayno wadad ina soo doonto inaga gardaran waxaad sameeyaan kuwaad qabataan inaad si ula dhaqantaan wilaayadnimo inta ma la garateen sidaan isku ogaano annagoo u dhalanay dhalinyaradii gobolka Salal lagu marmi maayo ciise khasab baanu kaga saaraynaa waxa weeyaan tiimkan isa soo baahaystay ilaa iyo Itoobiya ilaa iyo Jabuuti iska soo baahaystay waar dhulkan rag baa laadeer raggii lahaaba difaacanaya waxaan ku yiri nabad ku daaqi maysid baan ku yiri nabadaad ku daaqdo waa diiday waananu is arkaynaa kaasaan ku sifaynayaa gobolka Salalka kaabaan ku sifaynay waxaan nahay jafadii labaad ee beesha Habar Yuusuf waxaan ammaankayga sugaynaa gobolka Salal waxa weey waa lagu soo duulay weli waa la dhayalsanaya weli xitaa dawladda Soomaaliland way dhayalsanaysaa way nagu eegaysaa marka aan weerarno aan jabino ayay anaga dhabarkana tuujinaysaa dawladda Soomaaliland way ka jooga leedahay waxa dawladda Soomaaliland oo khafaraya in ama noo kala baxdo ama dalka ay difaacdo oo annaga waxaan dhex jooga ka kaxaysa annagu inaan hor deganaadaan ma doonino gobolka Salal maxaan u soo qaadanay qoriga hadaan meesha aan ka saaraynin qoriga iska dhignahay laakiinse dawladda Soomaaliland inay difaac ka saarto imika albaabka ay taagan yihiin imika ay ka saarto mara xabaashooda soo doonteen yaa ciise waraabe xabaashiisa soo doontaan jeclahay marka waxa weeyaan nabadgelyada haday Soomaaliland ka saari weydo annagu doorkan inaan weerarno oo waxayga gobolkayga muujisanaan doonayna haddii aad daawatay muuqaalkana dhameysatay aragtidaada inoogu reeb qaybta faalada haddii ay tahay markii ugu horeysay ku soo gaaro muuqaalkeena subscribe inoo dhagan baleelka furasay ku soo gaara muuqaalada kale xiga haddii aad subscribe inoo tahayna muuqaalka noo share galay like inoo saar waad ku mahadsantahay daawashadaada